waxaan jecelahay mar haday qoladayda arabku joogta maanta inaan kelmad kaftana ku gabagabeeyo nin baa ila kaftama maalin wuxuu igu yiri wani xiniya cadida aad baad u xiniya cadahay igu yiri sibuu kaftankiisu markaasi isaga gees bay uga lahayd marka jawaab ma siina laakiin Soomaaliland oo dhan maanta joogtaan isla malaha jawaabti maanta munaasibta horta annagu cailadeeda hoose reeruhu dareere la dhig baxaane annagu niman samanaa baan nahayo arabkan horta la dhig baxaan waliba qoyska Suldaan Umar baan ka tirsanahay oo Suldaan Maxamed ninkii waxaan xasuustaa wakakiisa Suldaan baa xaga fadhiya 94kii annagoo bartaa tagnay kaam haashin meel la yiraahdo oo baligubadle laanqeyrtan yar u jirta ayaa Suldaan Maxamed Allahu naxariiste ana jaadka uridqi jiray marka cailadoodaasaan ayaan ka mid ahay oo waan isku xidhnay oo isla dhig bixi jirnay marka waxaan xasuustaa guuleed Daawud baan dib ugu noqonayaa yani maskaxdeeda waxa ku sawiran dhaqanku milguhu lahaa iyo ninka suldaanka inta meel loo dadbay ay dumarku bartaa ka daawanayeen ninka reer miyiga yimaadana waxaan xasuustaa gacan ku salaameyna go'u ku salaami yani qiimaha saldanadu lahayd iyo bartaasa marka halkaana dadhiga rabbayga jira halka kalena hooyaday baa reer xarshino oo reer samataro iyaduna waa marka nin arab iyo reer samatar iska dhaleen waa la dareemi karaya halka siyaasadana dadabli baax baan ku fadhiyaa ninkan xaj sabaan marka waxaan isleeyahay cid kala dheeraysan maanta Soomaaliland ma jirto soo saama waxaan ka tagay xagga xaragadana intii dugsiga hoose sare ilaa jaamacadana Nuux Ismaaciil wax la baranayo halka intaas waxa iga tahay kaftan laakiin waxa soo dhanba waxaan kaga niyasamahay oo ku faraxsanahay inaan nin gabooya ahay inaan daami deganahay inaan dadka ugu laadheersanahay waxa ku sii faraxsanahay inuu Suldaan Daakirna adeerkay yahay boqor Axmedna abtigay yahay marka intaas kaftan u bayga ahayd aad iyo aad baad u maasantiin Ilaahay Soomaaliland ha guuleeyo inagana Ilaahay hayna barakeeyo